waxaan u gudbaynaa qodobkii saddexaad ee ahaa ugu dambeeyay ahaa saktigaan u gudbaynaa. saktigu isagu waa yar aamus yar, waa yar aamus yar. markaa saktiga inoo keen. saktigu waa maxay? asaktu huwa qadcu sawti cala alkalimati alqur'aaniya zamanan yasiiran min qayri tanafusi wa miqdaaruhu xarakataan. saktigu waxa weeye waa qadcu sawti, in codkii la jaro cala alkalimati alqur'aaniya, kelmadii qur'aaniga ahayd baa codkeedii la jarayaa zamanan yasiiran, zaman aad u yar, min qayri tanafus, iyadoo la neefsanayn, neefsasho isagu ma leh. wa miqdaaruhu xarakataan, miqdaarkiisuna waa 2 xarako. miqdaarka macnaha la jarayo, codka la jarayo ee la yar aamusayaayo waa 2 xarako. waxaa weeye saktigu waa qadcu sawti, waa in codkii la jaro cala alkalimati alqur'aaniya, kelmadii qur'aaniga ahayd codkeedii waa in la jaro, macnaha la isku taaga ayada. zamanka la jarayana waa zaman yasiiroo aada u yar, min qayri tanafus, inuu yar yahay waxaad ka garanaysaa xitaa lama neefsanaya isaga. wa miqdaaruhu xarakataan, miqdaarka codka la jarayana waa 2 xarako. hal qodob baan raba inaan idin sheego. saddexda shay waxay ku kala duwan yihiin. waqfiga waa in codkii la jaro, macnaa kelmadii qur-aanka ahayd zaman uu qofka qaariga ee qur-aanka akrinaya uu ku neefsan karo, hawo ku qaadan karo. qadciguna waa in qur-aankiiba la jaro, la joojiyaba. saktiguna waa in qur-aankii qiraa'adii la jaro oo la aamuso zaman aan lagu neefsan karayn, laguma neefsan karo. marka waxa cadar waqfiga iyada inaga daa ee qadcigan leh, waxa isku soo dhow waqfiga iyo saktiga, labadana isku dhow. labadana waxay ku kala duwan yihiin baan idin sheegayaa. hal shay ay wadaagaan waan idin sheegayaa. halka shay hortay wadaagaan baan idin horeysinayaayo, waqfigana qiraa'adii waa la sii wadayaa, saktigana qiraa'adii waa la sii wadayaa. labadaba waa biniyati istinaaf. waqfigana qiraa'adii waa la sii wadayaa, saktigana qiraa'adii waa la sii wadayaa. taa waa isku mid, taa way ka midaysan yihiin. labaduba waxay ka midaysan yihiin oo kale in kelmadii la isku taago, oo kelmad qur'aaniya intii ka shard maxaa ahaa, waxaa shardi ah in isaga kelmadii qur'aaniga in la isku taago. inkastoo saktigu meelo yaryar oo kala duwan ay yihiin, isaga waan sheegaynaaye. waqfiga iyo saktigu waxay ka midaysan in kelmadii la isku taago, sidoo kale in qiraa'adii la sii wadayo, oo mid walba qiraa'adii la sii wadayo qur-aankii la sii akhrinayo way ka midaysan yihiin. waxay ku kala duwan yihiin 2 shay. kow, shayga koobaad ee kala duwan waxa weeye waqfiga waa la neefsanayay, macnaha qadarka la istaagayo ayaa wuxuu yahay qadar uu qofku neefsan karo oo xoogaa yara. saktiguna isagu neefsasho ma leh neefsasho, waa inaysan neef kaa soo bixin. waxay ku kala duwan yihiin oo kale, waqfigu isagu waa meel walba de, waa qur-aanka oo dhan, waa meel kastoo aayadda ku dhammaato iyo meel kastoo kelmad dhexdeed ah, macnaha aayad dhexdeed ah. laakiin saktigu waa meelo yaroo macluum ah, waynu gaadhaynaaye. waaba isku 6 meelood marka la isku tootaliyo, waaba 6 meelood marka la isku geeyo. markaa saktigu isagu waa meelo yaroo macluum ah oo gooni oo khaas ah. laakiin waqfigu waa qur-aanka oo dhan, laakiin saktigu wuxuu quseeyo keliya qur-aankaba 6 meelood keliya ka quseeya. 6 meelood oo keliya sakti leh, inta kale male wey. marka intaana way ku kala duwan yihiin. marka haddaynu nimaadna saktigu waa qadcu sawti cala alkalimati alqur'aaniya, waa in codkii la jaro kelmadii qur'aaniga ahay la akhrinayay zamanan yasiiran, zaman aad u yar baa la jarayaa, laakiin min qayri tanafus, neefsasho iska ilaali. no. wa miqdaaruhu, qadarka macnaha codka la jarayana waa xarakataan. maxaa laga wadaa? waa in qaala lagu odhan karo. madu dabiici waan garanaynaa soo ma? madu dabiici ama madu asli, qadarka lamada imisay ahayd xarakataan bay soo ma? ama alif buu ahaa ama xarakataan. xarakataan waa maxay? labadaada farasoo kala bix intaa soo laabayso. waa qaala, yaquulu, qiila. marka xarakataan baa la aamusaya. xarakataan kaas kuu saamixi mayso inaad neefsato, neefsasho lama ogola. hadday gaadho darajatu tanafus, darajo aad ku neefsan karta haddaad gaadho, markaa sakti lama yidhaahde, waqfi baa la yidhaahdaa. ogaada, haddii aad sakti markaad samayso aad aamusto muddo aad ku neefsan karto oo neef iyo naqas ku qaadan kartaa,
maaha saktiga waa waqfi haddaad sakti rabta miya zamanan yasiiran min qayri tanafus waa zaman aada u yar aadan ku neefsan karayn weeye wa miqdaaruhu xarakataan inta halkaa kaga gudubna halkan waxaa ku qoran mawaadicu sakti mawaadicu sakti waa maxay waa meelaha qur-aanka kariimka lagu aamusayo hadda waxaynu soo sheegnay hadda dhaweyd aan fogeynba waxay ku kala duwan yihiin waqfiga iyo saktiga waxaynu sheegnay waqfigu waa qur-aanka oo dhan laakiin saktigu waa meelo yaroo khaasa isku geyna waa 6 meelood meelihii khaaska ahaa baynu halkan ku qaadanaynaa mawaadicu sakti meelaha khaaska aynu ku qaadanayna waxaa la yidhi asaktu fi lqur'aani alkariim calaa nawcayn horta saktiga iyo aamuska la aamusayo qur-aanka kariimka waa 2 nooc macnaha waa noocayn النوع الأول نوع كوباد السكت الواجب وسكت واجبة معناه وسكت واجب وحالة وضع وسكت حق حكونها وواجب ومعناها إنا تكو آمستا واجبك قلت أنا قفل بقرآن آخرية معناه وسكت واجبة وإنا تكو آمستا واجب أي تهي ولي وقد اختص به حفص رحمه الله اللهم حرسته وذلك في 4 مواضع قيبت واجبك أفرت ميراضة وحالة قولي حفص قراءة الحفص حيلاتنا وحين أخرجنا قراءة حفص عن عاصم مركا وحي كنت مادا بالطريقة الشاطبية كنت مادا بالطريقة الشاطبية كنت مادا مركا قراءة حفصة وقراءة إنه أخرجنا عين برناه في 4 مواضع في 4 مواضع أفر بوس أي واجبة إن سكت للسمايو إن سكت للسمايو أفرتي بوس أين هذا بقى هذا هذا مقاشو هذا الأركتو حلقوني حفصة وحذلك كفهمسه قراءات كلا إنك أي كو خلافين وما أي كجد ويهم هل كم حنكو قادرنا ألف على الماشى كوباد وعلى ألف المبدلة من التنوين من لفت ألف كوجودن بيا وألف كوجودن بيا التنوين تلو بدل هي حالة الوصل دي حالة الوصل وصورة إنصامهين سورة الأوريجري سورة الكهف وبآية كوباد وآية وجه الرئيس سورة الكهف مركا ألف كوي عوجا وألف كوجر عوجا مركا سورة اللي اسكت هاجا يدي سورة معناها مركا اللي اسكت هاجا عادي سورة اللي اسكت هاجا أيضا مركا هذا مله سكت مله وحالة الآن حالة الله يقانا معنا إيش يعني حالة السورة اللي اسكت هاجا أيضا مله سكت ومله أو حالة الوصل الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا حالة الوقف ملأ أيضا السكت في رجال وقاعدة سكتك واحد كو جران كرتا رموز أما علامات بولية وحنا أيانا ويتسوق هذا يقول جوهر الرموز القرآن سمعين رموز القرآن أما علاماتها القرآن كواحد كم إذا إنه وقف قيب وقف يوم بينو قاعدين وقف كلية نقاعدين وحكلام أنا قاعدين لكن وحنا مركا شيء رموز القرآن ويفربدين مركا وحولي الرمسي لو يقانوا ليه هذا عيدها في رسالة دول صار سين كاير بوليه وزين سقراء وعيدها دول صار مركا عوجا وحا لسكو تاغيا وحالة الوصل والكلية وحالة لغو حرية قيمة في قوله تعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما وكا عوجا واسكو تاغيسا آموس على النفسانين oo laba xaraka leeg waxaad ku xiraysaa markaa qayima laakiin haday noqoto inaad caadi iskugu taagto waqfi caadiya ayadu male laakiin xaalatul sakti waa marka aad ku xiraysaa qayima oo aayadaas aad ku xiraysaa aayada kale marka ciwaja waxaad isku taagaysaa qadar leeg laba xarako neefsamaysa ولم يجعل له عوجا قيما هكذا مركا هو ماشي كوباد
ماشي اللبعض اسكو تاغسة على الألف من مرقدنا. مرقدنا وسورة ياسين أيضا ألف كذا والاسكو تاغية نا وألف كاكوتشنا وقرم لكن وحالة وصلها وحالة لا حريرنا بهذا لا حريرنا هذا ما وعد الرحمن. marka ciwaja hadaad fiirto siinka yar baa dul saaran Soomaarta hadaad fiiriso marqadina ayadu waxa uu marqadina ayada sideeda waxay u tahay horta waqfi taam u tahayba waxa saaran calaamadii waqfiga qaafka dul saaran calaamadii waqfiga qaafka ba dul saaran ayada oo marka uu qofta laga hadlayo ila waqfigu waa qayb samaayeen iyadu waaba waqfi taama halkaas waa baab kale oo meeshaas oo kale inaad isku taagto ayaaba ka fiican inaad xiriiriso laakiin markaad marqadina ku xiriirinaysa hada ayaa waxa soo galaya sakti la aamusayo qadar leg laba xarakadood la neefsanay siinkina waa dul saaran yahay قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن. هدي آيات اسكو تاغتو marka hadii qaabkan wada akhrido قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن. marka sakti male marka waxa yimid waqfi aaliya yimid waa isku taagta markaas laakiin goorta saktigu imaanay waa goorma waa goorta la xiriirinayo waa qaabkan قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا halkaas waxa isku taagaysaa qadar aadan ku neefsanayno laba xaraka من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن. ماشي صدحاده اسكو تاغسا waxa way على نون كوي او من لفظ لفظiga من نون كداس اسكو تاغسا في قوله تعالى هذا الكلام لا يوي وقيل من او اسكيلا خلطك dad badan ka dhaca waxa way inay dhahaan وقيل من عادو aamusan oo marka ay neefsadaanba waxay aamusayaan qadar ay neef u qaadan karaan marka sagti maahay waa waqfi xadki marka waad ka baxday way laakiin maxaa la rabaa inaad aamusto qadar aadan ku neefsan karin aad u yar وقيل من راق وقيل من راق وقيل من راق علامتي وقفنا علامتي سكتنا ويدور صارتها معايا سين صقيرة أو الرمزي كم ده رموز ده لو قرطه ماشي نوني يالي سكتي يالو سين كوو سين كاسو كلا ميلك لو كوي ما ده يسوق رمزي كلاوه ميلك لو كوي ما ده يسوق رمزي كلاوه مركل لحنا ميلاد عن شغني شن ميلاد كم ده سين كاس دول صارن سين كاس دول صارن لكن هل ميل بس دول صارنين ماشي أفراد أفرتي قيبود واجب كلا أفر قيبود بواجبها صومه وحاول على اللام من لفظ بل واللام ككتشر من لفظ بل لام كاسل اسكو تاغي في قوله تعالى هذا الكلام ليه كلا بل ران على قلوبهم أو كلا بل ران على قلوبهم نو صح معها كسوا ومقع كله يشاء وصومرنا مقع صومها وحون نقضى وقف بنقض نو هدي قاعد وقف وهدو قاعد عامسكو قدر هدو قاعد الله نفسن كرو قدر الله نفسن كرو هدو قاعد ووقف اسكتي ما سكتي وإن هذا الله نفسن كرين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا بل ران
كلا بل ران كلا بل ران أفرتا ميلود وأفر ميلود واجب وأنا نوعي كوبات وأنا قراءة حفصة عن عاصم مركا شوكتو أفرتا ميلود إن الوقف في قصة ميسو وواجب وي واجب وي وحين هلكم كل قادرين إلى نوع إلا بعض نوع على بعض وام حيلكم حين أقرأ النوع الثاني نوع على بعض السكت الجائز والسكت الجائز سوي بنانته محا بنان إن السكت قصة ميسنا وبنانته إن السكت يسنا وبنانته هذا خيار كلامك إن السكت قصة ميسنا وبنانته هاي إن هذا السكت كد هذا قصة بينه وبنانته هذا خيار كلام وذلك في موضعين والله ما بوس لا ما ميلود مركا أفرت يورا لبن اللوجين ويسكل لحم ميلود معه لحم ميلود صو معه هاي الأول أما ماشي كوبل لمركو وبين آخر سورة الأنفال وأول سورة التوبة وآيات قدام بيس سورة الأنفال هي آيات أهرز سورة التوبة براءة وين تسوي وآيات قدام بيس سورة الأنفال لأن سورة التوبة أما براءة من الله ما لها بسم ما دام بسم أيسن لهين آيات سدح وجه أي هلكا كوبنان سدح وجه أي كوبنان آيات قدام بيس سورة الأنفال هي آيات سورة التوبة وهرز سدح وجه وحوي الوقف التام وبنانته إن أسكت تاكتو إن الله بكل شيء عليم وأد وقف السما يسوي كوبنات وكدنا بلابته براءة وحاكلو بنان وصلي بابنان وهداد وصل سنة ماشا وحا سوق لي إقلاب إن الله بكل شيء عليم براءة من الله ورسوله إقلاب سوق لي لأن عليم وحيكون مع التنوين براءة وحوها ريس باء مركا هو التنوين بعدها باء مركا إقلاب سوق لي مركا وين لغا هلا مركا قلنا دي ان إقلابك وين لهلا يو ميم تنوين تاسو نوع ما ميم لو بدلو waxaa kaloo ku banaan sagti markaad suuratu anfaal aad dhamayso ee aad bilaabayso suuratu tawba waad xiriirin kartaa anfaal baad ku istaagi kartaa markaas aad tawba toos u bilaaban kartaa sagtina waa samayn kartaa sagtigu sidee buu noqonayaa inna allaha bikulli shay'in alim براءة كنا يستاجي ميسد حريرين ميسد لكن وحنا عموسا عموس يرى لبعض دقيقة نفس الشنهين إن الله بكل شيء عليم براءة من الله هل كاسوي بنانت وحاك لو بنان ماشي الله بعد بنان وحوي على الهاء من لفظ مالية هذا كتر مالية سورة الحاقة ولكن وقرم وحال وصلها بما بعدها في قوله تعالى وأمرك الله وحريرين آياتك الدميس ويد هدا اسكت تاكتو تصالان آيات وحي هيد ما أقنى عني مالية مركا ووقف دي آيات وين مات لكن قرمو سقطوا إيمانيا على مد السين كانوا يدل صارت ورمزي واحد وحو إيمانيا مركات كحرين صعيد الدنبه ما أقنى عني مالية هلك عني سلطانية مركا اسكحريس مالية إيا هلك وحاذا مصيصة سكتي آدو يربع مصيصة وي لحدا ميلود أي قرآن كتشر السكتي حفصة عن عاصم بطريق الشاطبية أفر واجب هيد إيوه لبا جائز هيدوي مركا لبدا جائز كالتحكم كده هذا إسكاله وهو لديك كاقودا تدون تكو يستاق سكت السماء تدون سكتها سمين أديك تدون توقف السماء أديك خيار كله لكن أفر تعملوا ده واجب هيد انتاس أي 10 كويجي هاي أدبد ما سنتين دا وذا الميلا شوك تابع 10 كنا سيشر كريسان ولو ذاك تنا أصحابتنا عصنيا أدبد ما سنتين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.